Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhammaan aqoonyaal YouTube aan salaamay casharkan wuxuu ku saabsan yahay sideen u samayn lahayn root mobilkeena kaasoo naga caawinayo inaan applicationo badan ino backup markaan samaynayno ino recovery aan samaynayno waxyaabahaas oo dhan waxyaabahaas ka caawinaya rootka ayaa kamid ah kiyo casharka hore waxaan kaga hadalnay king root ayaan kaga hadalnay ardayda qaar uu u shaqeeyo qaarna uma shaqeynayo marka qaybtii labaad ayaan ka hadlaynaa rootka ee ah root genius aan ka hadlaynaa marka aan bilaabno. marka sida root u samaysid marka hore waxaad samaynaysaa linkiga ee description kasoo download garaysanaysaa mega waaye kadibna download ayaa leedahay sida ay kugu soo baxaya haddii aad rabtidna sidan kale download waad samayn kartaa oo browserka gudihiisa ayaad kusoo downloadsan kartaa sidan ay kugu soo baxaya kadib waa ku dhufatay run ayaa leenahay programka kadib waxaan leenahay mobilkaaga ayaad kula xiraysaa USB-ga sida casharaha usoo qaatay USB debuggingka waa inaad jaga ku saaran yahay computerka haddaad tagtid mobilkaaga waa inuu ku xiran yahay ujeedaa kadib hadduu mobilka ku xiran yahay iska xir waxaan oo dhan waxaa samaynaysaa double click ayaa siinaysaa root now meesha ku qoran tahay sababtoo ah hadda mobilka ma root garaysano marka root ku dhufatid wax yar waa sugaysaa ilaa dhowr daqiiqadood mobilka wuu isu soo daminaa wuuna isu soo daaraa inta markaa root samayso waxa laga baahan inaad taabanin kadibna succeed ku guulaysatay rootka ayaa lagu dhahay marka waxaan tusayaa qaybta mobilka ayaan u wareegaynaa si aan u aragtaan in rootka shaqeynaya in kale kadib mobilka ayaa maarta waxaa leedahay waxaan furaynaa root jackerka ayaan furaynaa si aad u aragtaan inuu shaqeynayo in kale waa sahlan dadka badan markaan jacker ku dhufto wuxuu soo saarayaa rootka root accesska meesha ku qoran tahay wuxuu soo saarayaa fiirin wuxuu ku leeyahay access guaranteed waa lagu guuleystay macnaha waxa ogaanaysa insha Allah bina ka faa'iideyso wanaagsan wixii aqoontaadana wala ku faa'iiday insha Allah qofka u shaqeeyo waa dhimi waxaan isku daynaa kuwa badan inaan sharaxno si qofka noocu yahay inuu ka faa'iideysto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh jazakumullahu khayran.